xulka qaranka Soomaaliya ayaa caawa la ciyaari doona dhigiisa xulka Uganda ciyaar qayb ka ah tartanka Jan Cup. Kulankan ayaa mid aad u xiiso badan. wiilasha Ocean Stars ayaa maalmihii ugu dambeeyay waxay tababar adag ku qaadanayeen dalka Djibouti iyadoo caawa ay ciyaarta halkaasi ka dhici doonto. Sida caadiga tartanka Jan Cup waxaa ciyaara xidigaha kubadda cagta ee ka dheela horyaalada dalkooda, waxaana ciyaarta ugu horeysa caawa ay ka dhici doontaa dalka Djibouti oo guri ahaan ay ugu ciyaarayaan xulka qaranka Soomaaliya. wiilasha Ocean Stars ayaa horaantii isbuucan waxay la dheeleen kulan saaxiibtinimo xulka Djibouti xilli ay guuldaro 1-0 kala kulmeen qaranka Djibouti. kulankaas oo ah mid saaxiibtinimo ay labada xul ee iskugu diyaarinayaan tartankan. sanadii 2018 ayaa markii iskugu dambeysay inay arkaan labadan xul ee Uganda iyo Soomaaliya tartanka bariga bartamaha Afrika oo ka dhaca dalka Burundi. xidigaha 17 sano jirada xilligaas oo xulka qaranka Soomaaliya uu ku adkaaday 1-0, waxaana la xasuustaa xulka 17 sano jirada inay gaareen finaalkii dhacdada tartankaasi. ciyaartan waxay soo gali doontaa caawa 12 maqribnimo, waxay ka dhici doontaa Xaaji Guuleed ee dhaca dalka Djibouti. xulka qaranka Soomaaliya sanadkan waxaa horkacaya macallin ku dhashay dalka Ghana Bashir Hefon, kaasoo xaqabad muuqda ka sameeyay xulka isagoo tababar adag ku siinay dalka Djibouti. caawan waxaa laga fili karaa ifafaalo guuleed maadaama xulka ay diyaar u yihiin inay wajahaan xulka Uganda.